Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkii Maxamed Amiin. Channelka daawanaysaana waa Amiin Media. Fadlan kusoo dhawaad muuqaal cusub iyo kulan kale cusub insha Allah tacaala. Waxaan ka cudur daaranayaa inaan ayaantan video soo dhigin aniga aan mashquulsan awgeed. Waa inaga raaligelinaya dhammaantiin. Waan rajeynaa meel kasta joogtaan inaad caafimaad qabtaan. Marka xigta waxaan doonayaa inaan ka codsado intaan muuqaalka guda galin haddii aan ugu cusub tahay soo dhawaw. haddii aad subscribe noo saarto waa ku mahadsantahay. haddii aadan noo saarin insha Allah tacaala noo saar subscribe insha Allah tacaala. waxay noo tahay dhiirigelin. Muuqaalkayga maanta waxaan doonayaa inaan kaga hadlo arrin muhiim ah oo run ahaantii aan doonayo nafsadeyda iyo tiinaba inaan ugu faa'iideeyo. Arrintaas oo ah sidee qofka uu ku gaari karaa heer ama noloshiisa uu ku horumarin karaa. taas ayaan doonayaa maanta inaan ka hadlo anigoo macnaha kuu sheegi doono 7 arrin oo qof kasta oo doonaya heer baahan ama muhiim loo baahan yahay ama muhiim ay tahay inuu qofka sameeyo. Arrinta koowaad aan kula wadaagayo waxa weeyaan walaal, qofka hadduu doonayo inuu hadaf gaaro waxaa muhiim ah qofka inuu nafsadiisa barto. nafsadaasi inuu markuu baranayo waxay tahay in qofka macnaha uu yaqiinsado uu garanayo nafsadiisa waxay jeceshahay, qofku yahay wuxuu awoodo, yacni wixii Ilaahay heebad u siiyey wuxuu nafsadiisa ay jeceshahay inuu garto si uu macnaha nafsadiisa ugu hago waxa uu ku fiican yahay. Adduunyada ma jirto qof wax kasta ku fiican, mana jirto qof wax kasta ku xun. qof kasta meel ayuu ku fiican yahay, meelna wuu ku liitaa, oo yacni wuxuu ugu baahan yahay inuu kor iskaga qaado. Marka qof kasta waxaa muhiim ah meeshu ku wanaagsan yahay inuu barto, meeshu ku xun yahana meeshu ku wanaagsaneen oo ku xun yahay u baahan yahay inuu isbedel ka sameeyana uu isbedel ka sameeyo. Marka taasi ayaa koob ka ah qofka in macnaha uu hadaf gaaro waa in nafsadiisa uu garanayo qofku yahay. Tan labaad waxaa weeyaan oo macnaha lagu gaaro hadaf ama macnaha guul lagu gaaro nolosha intaan nooshahay waxaa weeyaan qofka inuu dadaalo rabbigiisana tala saarto. yacni dadaalka waxaa weeyaan dadaal markaa la timaadid ka bacdi awalan horta wax kasta oo sameynaysid Ilaahay u tala saaranaysaa, deedna dadaal la imaanaysaa. ma shaqeynaysa kaliya Ilaahay iska tala saaranaya ma iska seexanaya wax kasta waa helaya may adduunka wax kasta oo macnaha aad doonaysid waa inaad u dadaashid. yacni haddaad doonaysid inaad wax baratid waa inaad u dadaashid, haddaad doonaysid inaad wax camal qabatid waa inaad u dadaashid, haddaad doonaysid inaad tusaale ahaan aad noqotid qof yacni ummadda sharaf ku dhex leh waa inaad dee u dadaashid oo cilmigeeda yeelatid. taasna waa muhiim run ahaantii. Ilaahayna inaad tala saaratid oo mar had iyo jeer alle ay noqoto qof Ilaahay ku xiran oo taladiisa Ilaahay u dhiibtay. taasna waa arrinka labaad ee lagu gaari karo guusha rabtid ama macnaha hadafka rabtid insha Allah. tan saddexaad waxa weeyaan isku kalsoonaan. qofka isku kalsoonaado oo yacni noloshiisa asaga gacanta gashta oo san qof kale ka sugin in macnaha inuu fikir ku beeriyo oo macnaha uu arrintiisii uu kala qayb qaato. qof kasta hadduu isku kalsoonaado kalsoonidaas waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad wax kasta oo aad doonaysid aad samaysid oo aad noqotid qof xitaa haddaa guuldarro la timaadid qof kalsooni leh oo guuldarradaasi guul u bedeli karo insha Allah ay ka dhigaysaa kalsoonida insha Allah. kalsoonida mar kasta wax la sameynayo ha yaraado inuu qofka ku kalsoon yahay wuxuu sameynayo waa muhiim. kalsooni darrada waa tan keento qofka inuu wuxuu sameynayo uusan ku qanacsanayn ama uu ka cabsanayo. tan afraad aan kula qaybsanayo waxaa weeyaan inaad baqin oo waxaad doonayso oo hadafkaada uu yahay inaad ka baqin oo aad ku dheeratid oo aadan macnaha ka istaagin mar kasta wax kasta ama ha yaraado ama ha badnaado. taasna waxay ka caawinaysaa qofka inuu hore u socdo uusan ka istaagin hadafkuu lahaa. tan afraad waxaa weeyaan sabir iyo dulqaad. qofku waa muhiim inuu sabir yeesho. wax kasta adduunkan la sameynayo saan soo sheegay waxaa ka horeeya dhib iyo mushkilo. dhibka iyo mushkiladaasi ayay macnaha dheeftu gadaal ka jirtaa. dee dhibtaas adoo marin lagama yaabo inaad macnaha waxaad doonaysa gaartid. marka dhibta iyo mushkilada waa inaad ku sabirtid oo run ahaantii waqti u gelisid wax kastoo doonaysidna aad ugu dhaweysid sabir iyo dulqaadna aad u yeelatid wax kastoo kaa soo gaaray waddadaas aad maraysid. tan shanaad aan kula wadaagayo qofku waa muhiim inuu yeesho hadaf
uu arkayo uu socdo oo macnaha uu leeyahay hadafkaas ayaan doonayaa inaan gaaro waa inuu yeesho run ahaantii waana taas qofka tan gaarsiin karto meel kastuu doonayo qofka hadduusan hadaf lahayn ma gaarayo meelna wuxuuna noqonayaa qof iska socdo meel u socday meel ka socdaan garanayn marka waa muhiim qof kasto oo doonaya guul iyo horumar inuu nolosha ka gaaro iyo tan aqrabo waa inuu hadaf yeesho hadafkiisana uu isku dayo inuu ka dhabeeyo ilaahayna uu tala saarto tan lixaad ee aan kula qaybsanay maanta waxaa weeyaan ha isdhiibin weligaa xitaa haddaad guuldarro la kulantid haddaa adeeg la kulantid haddaa rafaad la kulantid yacni ha isdhiibin weligaa noloshaadan ha dhihin guuldarro ayaad ku jirtaa weligaa guul ma gaarisid ha isdhihin ha isdhiganin yacni dadaal samee kun jeer haddaad wax macnaha tusaalahaan imtixaan haddaa gashid oo kale oo kun jeer ku dhacdid kunkaa jeer dhihin kun jeeraan sameeyey waan iska dhaafaya balse ha isdhiibin weligaa ku dadaal ku celceli soomaalidana waa tan tiraahdo doonaa waa gaaraa يعني قفك هدو هدف ليهاي ودوني يكون داليو أخيرا أدي آت معناه قفك أنا لآتها وجارسة تن تضغط عندوني مقال كان إنا كسوق بجبيو وحاويين قفك إنه كمل كينه وحو معناها ودقائق أو ودونيو وحدة وثلاثية واحد هدف معناها سديبن قفك إنه سديبن وحكينسا إنه هدف كيسه كمل كينه ووح الله وحو دوني ومعناها رن وكذبيه وماشي كمان دمست وجاره تاسو حقوق عامل كرو إن هذا الإسديبين وهدف كهاجي هذا يجرى على عادات جوجل درستid dib iyo dheef waxaad maraysid baad martid aadan macnaha aadan ka harin weligaa ilaa aad ka gaarisid kama dambaysta ama meesha doonaysay inahaas ayaan doonayay maanta inaan kula qaybsado waa rajaynayaa inaan macnaha wax muhiim ah oo noloshaada wax ka bedeli doona aan kuugu dhahay haddaad u aragtid wax qaldan inaan sheegay ma qaldamo waa ilaahay xagga commentiga igu soo qor waayo aniga waxaan jeclahay wax kastoo qalad ah aan sheegay inaan macnaha laga saxo waayo aniga miihi caalim miihi ustaadna miihi waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo doonaya wuxuu soo bartay ama oo khibradda u leeyahay inuu la qaybsado naftiisa iyo walaaladiisa ku xiran channelkan markastana ku mahadsantiin sidaad muuqaaladeeda u daawataan waqtiga gelisaana waxaan rajeynayaa inaad uu noqdo mid aad ka faa'iidaan aakhiraya adduunka wax aad ka faa'iidaan insha Allah tacaala hada ijaara halkan ayaan ka wada socon doonaa wax kasta oo aan arko inay ummadda u leedahay macnaha muhiimad waxaan isku dayi doonaa inaan halkan naga qaybsado insha Allah tacaala idinkana waxaan naga rajeynayaa inaad soo dhaweysaan oo wixii fikir ah aad igu biirisaan insha Allah tacaala meel kasta joogtaan aad ayaan idin salaamayaa walaalkiin maxamed amiin oo ina leh meel kasta joogtaan nabad ahaada kan oo kale intaan ku kulmi doono waa kulan dambe xiiso insha Allah tacaala iyo amaana Allah wabillahi tawfiiq wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh